waligaa ma isku dayday inaad jacayl ku abuurta qof aad ka heshay kadibna ma garan weysay sida ugu fudud ee aad guushaasi ku gaari karto? ma ogtahay in ay suuragal tahay in ay jiraan dad adiga laftaada kaa helay oo doonaya inay kuu soo jiitaan ayna aad u xiiseynayaan xiriirkaaga? haddii aan ka fiirino dhankaaga waxaan halkan ku eegaynaa dhowr xeeladood oo aad adeegsan kartid si aad ugu heshid dareenka qofku cajabgeliye oo aad doonayso inaad mustaqbal qurux badan la wadaagto. kow, dabeecadaada saxda ah kula dhaqan qofka. marnaba ha isku dayin inaad isbedel dhanka dabeecadda iyo shakhsiyadda ah u samayso si aad ugu soo jiidato qof aad ka heshay ama jeclaatay. waxa ugu wanaagsan ee aad qof walba ku soo jiidan karto waa shakhsiyadaada dhabta ah. ogow in xitaa haddii aad ku guulaysato soo xirogelinta qof adiga iska dhigaya si kale ay maalin u niyad jab kuu keenayso marka la ogaado qofka runta ah ee aad tahay dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaanba. labo, daacadnimo. daacad ka noqo dareenkaaga ku aadan qofka aad ka heshay ee aad doonayso inuu xaggaaga u soo dhowaado. ha ku darin waxyaabo been ah ama ka badbadis ah. runta sheeg xitaa haddii aadan ku qanacsaneyn, sababtoo ah ma garan kartid natiijada ka imaan karto adigoo ka heshay qofka oo niyadda ka jecel. ha uga dhigin inaadan habeenkii seexan karin ilaa aad sawirka qofkaas aragta. haddii ay taas sax tahay u sheeg, laakiin haddii aysan run ahayn daacadnimo muuji, hana sheeganin wax aan jirin. saddex, murti iyo madadaalo. noqo qof leh murti iyo madadaalo oo dadka ku farxad geliya ama kaga qosliya hadaladiisa. sidoo kale fahan marka kaftan la sheego adigoo muujinaya sida aad ula dhacday. gabdhaha badankood waxay jecel yihiin ragga sheekada badan, sheekadooduna ay xigmad xambaarsan tahay. afar, kalsooni yeelo. kalsoonidu waxay muhiim u tahay soo jiidashada qofka kale. sidoo kale adiga laftaada ayay ku siinaysaa niyad wanaag iyo inaad naftaada jeclaato. intaas marka aad samayso, noqo qof mar walba diyaar u ah caawinta haddii aad awoodo. waa hubaal in dabeecadahan ay sabab u noqon karaan inuu kugu jeclaada qofkaad doonaysay. mahadsanidin.